guddiga qandaraasyada Somaliland ayaa waxa ay maanta si rasmi u furan tartan loo galayo mashaariic loo fulinayo hay'adda dhawrista tayada Somaliland waxaana ay tartankaasi guddigu u qabteen 30 shirkadood oo u tartamaya laba mashruuc oo loo hirgelinayo hay'adda dhawrista tayada Somaliland kuwaasi oo kala xarunta hay'adda iyo sidoo kale xafiiska laabka ee magaalada Berbera ee hay'adda looga hirgelin doono ugu horreeyna waxa halkaasi hadallo ka jeediyay gudoomiyaha guddiga qandaraasyada Somaliland Nuux Maxamed Xuseen isagoo ka warbixiyay siyaasadda guddigan ee ku wajahan dhinacyada qandaraasyada tartankani ay maanta u fureen 30 shirkadood anagoo fulinayna siyaasadda madaxweynaha qaranka mudane Muuse Biixi Cabdi oo ahayd in loo sinaado qandaraasyada qaranka saaka halkan waxaan ku soo bandhignay laba mashruuc oo kala ah dhisme loo dhisayo hay'adda dhawrista tayada xarunta Hargeysa iyo shaybaadhka dhisme loo dhisayo hay'adda dhawrista tayada gobolka Saaxil gaar ahaan degmada Berbera labada mashruuc waxa ku soo tartamay shaybaadhka dhismaha shaybaadhka Berbera waxa ku soo tartamay 10 shirkadood xarunta guud ee yeelan doonto hay'adda dhawrista tayada waxa ku soo tartamay 20 shirkadood marka la isu geeyo 30 shirkadood ban maanta aanu tartan u qabanay insha Allah taala sidii caadada inoo ahayd 30 kuba de guuleysan maayaan laba shirkadood baa laga rabaa 28 waxba heli maayaan inta aan helin waxaan kula dardaarmaynaa guddida iyo xafiiska ka caajisina shaqooyin badan baa inoo soo socda insha Allah taala adhankiisa waxa isna halkaasi ka hadlay gudoomiyaha hay'adda dhawrista tayada Somaliland Muuse Xasan Xaaji Yuusuf waxaana uu tilmaamay in hay'adahan ku qanacsan yihiin waxqabadka guddiga qandaraasyada loo wado waanu ku qanacsanahay waxaanu rajaynaynaa insha Allah shirkadda ku guuleysata inay ku soo baxday si cadaalad ah waxaanu ka filaynaa shirkaddu markay soo baxdana insha Allah inaanu la shaqeyno oo dhisme wanaagsan oo tayo leh muxuu ahaa maadaama waanu nahay hay'adii tayada dhisme wanaagsan oo tayo leh inuu halka ka soo baxo waxaanu aad iyo aad ugu mahad celinaynaa sida muxuu ahaa wanaagsan ee guddida qandaraaska qaranku ay qandaraaskan aanu maanta goobjoogka ka ahayn ay gacanta ugu hayso la ka jeediyo xubno ka socday shirkadaha tartankani u tartamaya iyaguna ay sheegeen ay ku qanacsan habaanaaneedka tartankani loo qabtay ugu dambeeyna waxa halkaasi hadallo ka jeediyay gaasimaha guud ee guddiga qandaraasyada Somaliland mudane Maxamed Axmed Xasan Jabarta Saadle iyo sidoo kale Maxamed Xayd Diiriye oo kamid ah xubnaha guddiga qandaraasyada Somaliland qandaraaskan waxa la bilaabay bishii tobnaad labadeedii 2019 wuxuu xirmayay 9kii bisha tobnaad 2019 wuxuu socday qandaraaskaasi muddo 7 casho maanta oo bishii tobnaad 10keedii ay tahayna xafiiska guddiga qandaraasyada qaranka Jamhuuriyadda Somaliland baa halkan gudoomiyuhu ku furaya inagu ka ninku waliba u arkay qiimihii meesha lagu doonayo xukuumaddu ku doonaysay iyo qiimaha uu asuu keensaday waxa uu haray dukumentigaas oo iyana hadhow dub loo wada baari doono ninku inuu cashuur bixiyay yahay inuu mataqaana capacity uu leeyahay mataqaana wax ku dhisi karo waxa soo dhibana waxa guddida u hadhay labada cashuur ay ka shaqeynayso waa Soomaali Cabdi Axmed Karile Kalsan TV Hargeysa.